بسم الله الرحمن الرحيم asxaabta ku xidhan kanaalkaygan aqoonkaaga kanal kusoo dhawaada kanaalkeenii oo aad uga barateen cilmi ku saabsan IT-ga ama cilmi ku saabsan computerka dan si kale u dhigno oo aan maalinba cashar aan soo geliyo oo aan u arkayo casharkaas inuu muhiim idin yahay. maanta asxaabay waxaan isla qaadan doonaa ama aan idin dhigi doonaa waayo kanaalkeenani waa kanaalka la dagaalama jahliga iyo aqoon darrada. maanta waxaanu dhigan doonaa cashar ku saabsan 4 qodob oo aad ku xulan karto computerka aad doonayso. yacni computer markaad soo iibsato maxaa lagu xushaa computer? waxaa jirta qodobo muhiim ah oo laga maarmaan ah oo aad computerka markaad soo iibsanayso aad ku xulanayso. haddaynu qodobka ugu horeyno aynu ku horeyno qodobka koobaad ee aad computerka ku xulanaysaa waxa weeye waa RAM-ka. meesha ugu horeysa aad check garaynayso markaad computerka aad iibsato ee aad meel tagto meelahaas ka checking garaynayso waxaa ka mid ah RAM-ka. marka RAM-ka xagee laga eegaa computerka? RAM-ka waxa kaga jira computerka dhowr qodob baad computerka RAM-kiisa ku ogaan kartaa meesha uu computerka kaaga jiro. kow waxaad taaban kartaa shortcut adoo isticmaalaya control shift escape marka daaqadana kusoo kaxaysa. daaqadan magaceeda waxaa la yidhahdaa task manager. marka task manager-kan oo daaqadana waxyaabooyin fara badan oo muhiima ayaa ku jira ama qodobo badan ayaa ku jira oo computerka muhiim oo waxyaabo badan laga check-gareeyo. marka inagu waxaa kala eegi maynee meesha aynu soconno baan eegaynaa. dabeetana waxaad tegaysaa markaad daaqadana soo furto performance meeshay ku qoran tahay performance click baad taabanaysaa. dabeetana waxaanoo qodob baa kuusoo baxaya oo CPU-gii, memory-gii, hard disk-gii kuwaasaa kusoo baxaya. marka inagu keebeen ka dooranaa imika waxaan ka dooranaa meeshay ku qoran tahay memory baan ka dooranaa. marka memory-gii marka kusoo baxo waa RAM-kii baa inoo soo baxaya. RAM-kii baa inoo soo baxay way haddaba RAM-keenii meelaha qof RAM-kaaga aad ka check garaynaysa waxaa ka mid ah RAM-kaaga imise GB baa ku jira. yacni RAM-kaaga imise GB baa ku jira, ma 4 GB ba, ma 3 GB ba, ma 5 GB ba, waxaan leeyahay ma 6 GB ba, ma 16 GB ba, ma 32 GB ba. meelahaasaa inta badan computerka laga eega. markaad doonayso computer inaad iibsato waa inaad iska eegtaa GB-ga ku jira, RAM-ka ku jira intee buu yahay. RAM-ka ku jira hadduu yahay 2 GB iska ilaali computerka waa inaad iska daysaa. computerka ku anfacaya maaha. laakiin way jirtaa oo computerka haddii aad ku aragto isagoo 2 GB ku jira waad kordhisan kartaa oo dee RAM-ka waa la kordhistaayo waad iibsan kartaa moogta oo RAM kaloo 4 GB aad galan kartaa. marka RAM-ka waa inaad iska eegtaa inta ku jirtana waa inaad iska eegtaa. marka RAM-kaaga waa inaanu ka yaraan inta ku jirta computerkaaga ama laptop-kaaga waa inaanu ka yaraanin 3 GB halay 4 GB afwan 4 GB waa inaanu ka yaraan 4 GB waa inaanu ka yaraan. laakiin haddii 2 GB uu ku jiro computerkaasi computerka anfici karaya maaha waad isticmaali karto in badan oo ku hayn kara maaha. marka qodobka koobaad aad isla eegaysaa waa maxay? waa inaad ogaataa RAM-kaaga imise RAM oo GB ku jira. marka waa inuu ugu yaraan 4 GB ku jirtaa, ugu badnaana 32 GB waa inay ku jirtaa. at the same time waxyaabaha kale iska eegi karto waxaa ka mid ah nooca RAM-ku noocyo kala leeyihiin. ma DDR2 ba, ma DDR3 ba, ma DDR4 ba, ma DDR5 ba. marka DDR-radu micnaheedu waxa weeye RAM-ku waxaa jirta RAM hal dhinac uun ku leh slot, hal dhinac buu slot ku leeyahay iyo mid labada dhinacba ku leh slot oo data qaadi kara. marka labada dhinac ku leh ayaa dual data rate la yiraahdaa. dual data rate 3-gana waa generation-kii saddexaad iyo waxyaabaha ayaa la yiraahdaa. marka kaana waa inaad iska eegtaa. waa inaad iibsan kartaa computer DDR-ka ku jira uu yahay DDR3 waa inaanu DDR3 waa inaan ka hoosay ka ugu yari waa ina DDR3 ilaa DDR4 DDR5 hadduu kugu jirana waa caadi waa okay. laakiin waa inaanu ka yaraanin DDR3. haddaad DDR2 iibsato computerkaasi computer RAM-kiisu ku anfici karayo maaha waayo DDR2-ga inta badan waa laga gudbay oo waa old version baa la yiraahdaa. waa version-kii hore
iminka waxaba la maraya DDR5 ayaa la maraya. halkaasi markaa waa markaa doonayso raamka inta ku jirta aad ogaato. waxaad kaloo iska eegaysaa raamkaaga speedkiisu ma haddii uu ka hooseeyo 13,330 megahertz haddii uu ka hooseeyo raamkaasi raamku anfacaya maaha. waa inuu raamkaaga iska sarreeyaaba la doonayaa intaa oo ilaa aad gaarsiiso ilaa 14,000 ilaa 15,000 ilaa 16,000 ilaa 17,000 ilaa 18,000 meelaha waa inuu ku gaari karaa. ma fahamteen? meelaha kale inta badan la iska eego waxaa ka mid ah slot usage oo ah inta slot aad isticmaashay. marka dadka qaar baa jirta aan garanahayn oo meelahan kale ku khalkhala. meelahan kale waa muhiim markaad computerka markaad iska eegayso inaad iska hubiso. bilmasalo kale meel baad tagtay waxaad doonaysaa RAM inaad soo iibsato. RAM-ka aad soo iibsatay nin baad ku tiri ninka meesha haysta ee aad meesha ku soo iibsanaysaa ayaa waxaad ku tiri waxaad ii gelisaa RAM 8GB ay geli 8GB baan doonayaa 8GB computerkayga ii geli ama iga iibi 8GB. dabeetana ninkii 8GB kuma gelinay wuxuu markaa computerkaaga 2 RAM ayuu qaadaa oo 2 RAM weeye. markaa labadii RAM-ba way buuxaan oo marka hore waxaa ku jiray haddii ay badankeeda leeyahay waxaa ku jiray marka hore waxaa ku jirtay 4GB qura kasoo qaad tusaale. markaa 4GB haddii ku jirto maxaa lagaaga baahan yahay sida 8GB kugu noqoto 4 kalaad ku daraysaa dabeetana 8GB bay kusaa kugu noqonaysa 8GB kusaa kugu noqonaysa. laakiin haddii aad laptopkaaga aanay raamba ku jirinba uu maran yahay labadaba maxaad soo iibsanaysaa 8GB. marka isagu uu ku khiyaameyn karaa oo wuxuu haddaadan computerka fahamsanin wuxuu kuu gelin karaa 2GB iyo 2GB kuu gelin karaa dabeetana 4GB bay ku noqonaysaa oo labadii god buu kaa buuxinayaa mid laba ku gelinaya. marka taana waa inaad iska hubisaa oo mar walbaba waxa raamkaaga laptopkaaga waxaad gelinaysaa waa inaad iska hubisaa waxa ay yihiin oo aqoon dheer waa inaad taana u lahaato waayo inta badan halkaa waa la isku khalkhalayaa. waayo halkaana waa qodob kale oo aynu sheegnay. marka qodobka koobaad aynu hadda sheegnay waxa weeye yaa iska check garaynaysaa waa raamkaaga. waayo halkaa waa la fahamtay mar maranaya. waxaan u gelaynaa CPU-ga bal CPU-ga inaan eegaynaa oo ah CPU waxa weeye waa maskaxdii computerka maskax intee leeg baa ku jirta. waa muhiim waa qodob muhiim ah iyadana waad check garaynaysaa. marka aniga imika computerkayga laptopkayga CPU-ga ku jira shirkadii soo saartay wada inta badan shirkadaha jirta soo saara CPU-da wada shirkadu haynoo dambayso. laakiin aniga CPU-ga maskaxda computerkayga ku jirta waa 2.10 GHz ayuu yahay standard speedka. basic speedka iyaduna waa 2.10 GHz. ma fahamteen? marka CPU-da meelaha inta badan la iska eego waxaa ka mid ah CPU-gan what production company shirkadda soo saartay ama company-ga soo saaray baad iska eegaysa. waayo companiyada qaar baa jirta version oo laga guuray oo qarniyadii hore iyo kuwa qarniga cusub la isticmaalo iminka. marka kuwa qarnigii hore laga tegay waa iska ilaalinaysa kuwii qarniga cusub la isticmaalo ayada qaadanaysa wixii cusub caalamka jecel soo maahay. waayo marka speedka CPU-gaagu waa inaanu ka hooseynin maxay 2.10 GHz waa inaanu ka hooseynin oo halkaa ku taala 2.10 GHz waa inaanu ka hooseyn. waa inuu kasii sarreeya haddaad doonaysana oo ilaa 3 4 4.10 4.4 meelaha waa inuu gaari karaa iyo wixii kasii sarreeya meelaha waa inuu gaari karaa. marka CPU-dana meelahaasaa la iska eegaa inta badan. waxaad kaloo iska eegaysaa CPU-gaaga shirkadee baa soo saartay ma Intel ba ma Pentium ba ma AMD ba. shirkada waxaa jirta shirkado fara badan oo inta badan soo saara CPU-da. marka kuwaana waad iska eegaysaa. marka mar walba waxaad dooranaysaa oo inta badan versionkii ugu dambeeyay modern version of CPU company waa Intel company ayaa inta badan ah shirkadihii ugu dambeeyay ee soo saara CPU-da soo saara. marka meelaha kale iyada lafteeda aad iska eegaysaa waxaa ka mid ah CPU-gaaga imisa core baa ku jira ama core-ka ku jira waa intee buu leeyahay. ma core i3 ba core i3 ba ma core i5 ba ma core i6 ba ma core i7. marka core-ka kugu jira computerkaaguna waa inaanu ka hooseynin core i3 waa inaanu ka hooseyn.
haddii uu core i3 ka hooseeyo ay kugu jirto core i2 computerkaasi CPU-giisu CPU ku anfici karaya maaha oo aad hawlo badan ka fushan karto oo aad computerkaaga sii jiri karo oo isticmaali karto maaha waayo CPU-du waxaan ognahay inay computer laptopka marka la joogo ama computerka shaqo weyn u qabato oo ay ka mid tahay in CPU-du amarta waata amar siisa haddaan doonaya inaan window daaqada inaan soo kiciyo inaan Windows Word-ka inaan soo kiciyo Microsoft Word haddaan doonaya inaan soo kiciyo meesha laga soo kicinayo marka warsa meesha uu yaala waa hard disk drive laakiin cidda amarka soo siinaysa in la kiciyo baa Word in la soo kiciyo waa CPU-da marka CPU-daasi hadday CPU firfircoon tahay oo dee core-ka ku jira uu badan yahayna si fudud buu markiiba kugu soo kiciyo laakiin haddii core-kiisu liito kuma soo kici karayo intaasina waa inta meelahaasa inta badan CPU-dana laga qiimeeyaa marka qodobkii labaad baynu idin eegnay marka qodobka labaad waxaynu ku eegnay oo laga jeegaranayo ee meelahaad ka jeegaranaysa computerkaaga waxaa kamid ah ama laptopkaaga noocu doona ha ahaado ama Toshiba ha ahaado ama Dell ha ahaado Dell laptop ama HP laptop ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaado meelahaad ka jeegaranayso ama Acer laptop ha ahaado meelahaad ka jeegaranayso meelahan ayaa kamid ah meelahan baa kamid ah oo qodobka labaad CPU Central Processing Unit qodobka saddexaad ee la doonayo inaad computerka ka jeegarayso maxaa kamid ah qodobka saddexaad ee la doonayo inaad ka jeegarayso waxaa kamid ah hard disk drive-ka computerka ku jira waa intee leegi marka haddaynu ku dhufano hard diskigu waa kan markaa kanaad ku dhufanaysaa marka hard diskiga inta ku jirta capacity-ga inta ku jirta aniga laptopkayga inta ku jirta waa 466 GB 660 GB baa ku jira marka general capacity inta badan hard diskiga general capacity-giisu waa 500 laakiin waxa la yiraahdaa 34 kamid ah ayaa systemka cuna marka 34 ka saxara marka maxaa soo hadhaya marka 406 500 markaynu ka jirno 34 waxa soo hadhaya 466 GB soo good marka intaas ayaa marka waa inaanu intaana ka hooseyn 466 GB waa inaanu ka hooseynin hard disk drive-kaaga capacity-ga ama storage-ka uu leeyahay waa inta ka kooban halkaana waa isla fahmay yadana intaas ayaa ugu muhiimsan marka isku soo wada duuduubo inta badan waa meelaha laga qiimeeyo computerka ama laptopka markaad soo iibsanayso meelaha laga eego ayaa ay kamid waxyaabaha kale la iska eegi karo waxaa kamid ah battery-ga laftiisa waa la eegaa battery-gaaga inuu caafimaad qabo iyo inaan caafimaad qabin lafteedaba taana waa iska eegaa oo meelaha kale la iska eega bay kamid tahay markaad computerka iibsanayso waxaa kamid ah battery life battery waxyaabaha iska eegi karta waxaa kamid ah ee la doonayo inaad eegto marka waxyaabaha kale iyada lafteeda la iska eego waxaa kamid ah meelaha kale aad computerka ka eegayso meelaha kale inta badan computerka laga eego waxaa iyadana kamid ah battery-ga laftiisa waad iska eegaysa battery-ga marka battery-ga sida loo eegaa waxaanu soo furaynaa waad shortcut ka taabanaysaa Windows plus R dabeetana waxaad soo furaysaa CMD baad ku qoraysaa halkaa waxaad ku qoraysaa maxay imika aniga way ku qoran tahay ZMD baad ku qoraysaa oo ah daaqada madow dabeetana waa common baad soo furaysaa dabeetana markaas aad soo furto waxaad ku qoraysaa code-kan baad ku qoraysaa code-kani waa code inta badan loo adeegsado marka la jeegaraynayo battery-gaaga aad information fara badan ka ogaan karto marka la doonayo inaad information badan ka ogaato battery-gaaga code-kan baad qoraysaa code-kan waxaa la yiraahdaa power waxaad ku qoraysaa power CFG / battery report marka xog yar buu ina siinayaa link yar buu ina siinayaa marka linkigan waa marka intaasaad qaadanaysaa intaasaad copy aad ku sameynaysaa copy garaysanaysaa intaa weeye intaasaad ka copy intaa kale ma qaadanaysid intaa quraad copy garanaysaa control plus Z baad leedahay oo copy garaysanaysaa
dabadeetana markaad saa u copy garaysid maxaad leedahay waxaad soo furaysaa explorerkaaga explorerka markaad soo furto halkaasaad ku dhufanaysa halkaas ma garanaysaa baad ku dhufanay dabeetana markaad saa ugu dhufato waxaad ku dhufa control v baad leedahay control suga halkaasaad ku shubeysaa dhulkaadiga noo soo rasmiya halkaasa saa ugu shubeysaa halkaasa saa ugu shubeysaa dabeetana markaas saa ugu shubto waxaad dahaysaa control v control v markaas saa u tiraahdo ee uu kuu soo saaro control v markaad ku dhufato ee uu kuu soo saaro waxaad kasii dooranaysaa hadii berikeeda yahay waxaad kasii dooranaysaa intaa markuu kuu soo saaro aad xogtaa copy garaysatid waxaad kusii qoraysaa haddana halkan halkan waxaad kusii qoraysaa afwan waxaad kusii qoraysaa power cfg power cfg / energy ayaa iyadana aad ku qoraysaa marka iyadana seconds baa la sugaa seconds baad sugaysaa seconds baad sugay marka waxaad sameyneysaan halkaasaad ku cmd da daaqada cmd da soo furaysaa dabeetana halkaasaad koodhkaasaad ku qoraysaa koodhka intaa le koodhkaasaad qoraysa ugu horeyn koodhkaasaad qoraysaa oo ah power cfg / battery report dabeetana markaad intaa qorto inter baad leedahay dabeetana intan buu kuusoo saarayaa filekan yar linkigan buu kuusoo saarayaa marka intaasaad highlight garaynaysaa dabeetana waxaad taabanaysaa control z waad copy garaysanaysaa inta control z dabeetana xaggaad diga intaa markaad copy garaysatid waxaad copy garaysanaysaa halkan baad digaysa waxaad soo furaysaa explorerkaaga dabeetana halkaasoo ma garanaysa xaggaas sare halkaas saread ku copy garaynaysa xaggaas sare soo ma garanaysa ayaad tad waxaas ka saarto ayaad leedahay control past ama control v ayaad leedahay dabeetana inter baad leedahay dabeetana wuxuu intaa markaad inter tiraahdo wuxuu kuusoo saarayaa daaqadan buu kuusoo saarayaa wuxuu kuusoo saarayaa xogta yaree madow buu kuusoo saarayaa wuxuu kuusoo saarayaa haddii ay badankeeda leeyahay xogta buu kuusoo saarayaa wuxuu kuusoo saarayaa tan halkanay markaa imanaysaa meel buu kuu dhigayaa waa tan battery reportkaas kuusoo saaraya marka horeysa daaqada yar ee madow buu kuusoo saaraya marka ugu horeysa daaqada madow ayuu kuusoo saaraya marka tani ma aha meeshii aad ka ogaanaysay maxay battery reportkaaga ma aha ama battery informationkaaga markaad ka ogaanaysay maaha taa marka kuusoo saaro haddana intan baad qoraysaa haddana waxaad qoray mar labaad baad haddana waxaad qoraysaa mar labaad waxaad qoray mar labaad haddana intan baad qoray
intaasad qoraysa power cfg/energy intaa qura markaad qorto ayuu wuxuu kuu soo saarayaa xogtan buu ku siinaya haddana detailkan buu ku siinaya detailkan marka intaa detailkaasaad hadhow faahfaahsanaysa ayaad haddana yadna waxaad taabanaysaa control ood copy garaysanaysaa dabeetana isla meeshii markii aynu ku copy garaynay ayaa lagu copy garaynayaa halkaasaad ku copy garanaysa halkaa ayaad maxay ayaad ku copy garaynaysaa halkaasaad ku copy garaysanaysa halkaa markaad ku copy garaysayso enter baad leedahay dabeetana wuxuu ku siinayaa intaa markaad enter tiraahdo chrome buu kugu soo kicinayaa ama browser nooca kugu jira ayaad hadhow ku dooranaysaa noocii kugu jira userku kuu dhigayaa siidaada halkan hoose imanaysa waa tan marka aniga iminka chromeka browserku igu soo kiciyey waa chrome google chromekii weeye adiga haddii kugu jiro microsoft edge oo kale internal explorerkii kuwa marba kii kugu jira ayuu kugu soo kicinayaa marka kan dambe ayaad qaadanaysaa kaasaa informationka saxdaa ku wada energy reportka ayaad right click tahaysaa dabeetana hadhowto wuxuu ku weydiin karaa keebaad kusoo kicinaysaa browserada kugu jira ciladahaas kaa hor iman karaa ciladahaas hadhowto waxaad ka dooranaysaa marba kii kugu jira kii aad doontaad kusoo kicin kartaa kaa doontaad kusoo kicin kartaa dabeetana open baad leedahay waad furaysaa hoos baad usoo degaysaa xaggaa hoose meelaha halkan hoose ayuu wuxuu kugu soo qorayaa battery information marka hadhow halkaasaad kala soconaysaa batterygaaga inta kooree ku jirta waxaa leeyahay inta speedkiisa caafimaadkiisa waxyaaba fara badan oo muhiima halkaas ayaad ka ogaanaysaa marka intaasaynu maanta asxaabay aan kusoo gabagabeynayna casharkeena maanta waxaan marayaa inaad si fiican u fahamteen maanta laga bilaabana waxaan u malaynayaa inaad computer fiican oo aad iska eegteen aad soo iibsan kartaan idinkoo ka faaidaysanaya casharkan aan idin siiyey inahaas aynu kusoo gabagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hana ilaawin kanaalkeena inaad subscribe ta inoo saartaan waa mahadsantihiin